Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaa maanta si kulul uga hadlay doodaha ka taagan lahaanshaha magaalada Muqdisho, isaga oo si cad u cambaareeyay hadallada dadka ku andacoonaya in ay iyagu leeyihiin caasimadda dalka. Wasiirka oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe ayaa sheegay in dadka ku doodaya in Muqdisho ay iyaga u gaar tahay ay yihiin kuwa ku yimid magaalada iyagoo wata hub iyo jabhad, isla markaana aysan jirin cid sheegan karta lahaanshaha caasimadda oo ah meel dadka Soomaaliyeed oo dhan ay u siman yihiin. Xamar kuwa unuka leh dhahaya iyagu malaha koyto ayay ku yimaadeen iyagoo jabhad wata. Xamar waxaa leh dadka ay ku abtirsato ee banaadiriga waana kuwa ugu xuquuqda daran maanta, ayuu yidhi Wasiir Maxamuud Caydiid Dirir, isagoo hadalkiisa ku muujiyey sida ay Puntland uga soo horjeedo fikradda dadka isku dayaya in ay Muqdisho u arkaan deegaan gaar u ah qolo keliya. Wasiirka ayaa si gaar ah u adkeeyey in dadka ku dhaqan gobolka Banaadir ay maanta yihiin kuwa ugu liita marka laga hadlayo xuquuqda siyaasadda iyo maamulka, isagoo sheegay in muddada dheer ee ay dalka soo mareen colaadaha iyo isqabqabsiga ay banaadiriga noqdeen dadka ugu badan ee la duudsiiyey xuquuqdooda dawliga ah. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ku tilmaamay in Muqdisho tahay caasimadda Soomaaliya oo aan la aqbali karin cid sheegata lahaansho gaar ah oo ka baxsan xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhammi wadaagaan. Hadalkan adag ee uu jeediyey wasiirka warfaafinta Puntland ayaa ku soo beegmaya xilli doodaha ku saabsan mustaqbalka maamulka gobolka Banaadir, xuquuqda dadka deggan, iyo arrimaha ku saabsan kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee dalka ay ahmiyad gaar ah yeesheen. Sidoo kale wuxuu baaq u diray dowladda federaalka iyo madaxda siyaasadda dalka, isagoo ku booriyey in laga shaqeeyo xaqsiinta xuquuqaha shacabka banaadiriga iyo in la joojiyo hadallada dadka qaar ku kala fogeynaya bulshada Soomaaliyeed. Ugu dambayntiina, hadalka wasiirka ayaa bulshada bariga Soomaaliya iyo kuwa kale ee dalka dhexdiisa ka dhaliyey dood ballaaran, maadaama uu taabtay arrin muddo dheer muran ka taagnayd oo ku saabsan sida cadaalad u ah matalaadda iyo xuquuqda dadka ku nool caasimadda Soomaaliya.